waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bulshada Academy oo ah macad lagu barto luqadda Ingiriiska iyo asaaska kombiyuutarka wuxuu idiin soo bandhigay course aad u cajiib ah, course culus oo luqadda Ingiriiska. Course-kan wuxuu ka kooban yahay 4 book oo midba midka kale uu ka sareeyo kana waxa weeye wanaagsan yahay. waxaan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare dhigata, kuwa jaamacadaha galaya iyo kuwa collegeska dhigta iyo cid ka soo danaynaysa inay luqadeeda sare u qaado. buuga idin muuqda waxa la yiraahdaa English for Everyone. waa buug ka mid ah buugaagta loogu isticmaalka badan yahay dunida waqtigan wax laga barto luqadda Ingiriiska laga daalacdo. waa grammar heer walba ayuu leeyahay, heerka bilowga ahaa buu leeyahay, dhexdhexaadkii buu leeyahay iyo advanced level-ka oo qofka luqadiisa ay xogaa wanaagsan tahay oo isku dhisi lahaa ama ku dhameystiran lahaa inta ka dhiman. haddaba English for Everyone wuxuu ka saacidayaa in aad hesho wax kasta oo ku saabsan grammar oo luqadda Ingiriiska. nooc walba oo grammar ah ayaa ku dhameystiran, waa ilaa 300 oo page. si consecutive ayaan u qaadan doonaa haddii aan la idmo, oo si joogto ah waxa weeye ardayga cashir ayuu u qaadan doonaa. waxaana laga qabtiri doonaa baahida grammarka iyo naxwaha luqadda Ingiriiska. intaas kadib waxaan kaloo waxa weeye ardayda u soo bandhignay buugga kale la yiraahdo Oxford Word Scale. waa advanced level. waana buug ay leedahay jaamacadda Oxford. waa buug aad u tayo sareeya. buugani sida idin muuqata ciwaankiisa waxaa la yiraahdaa Oxford Word Scale. waa items iyo phrasal verb. itemsku waa sarbeebta luqadda Ingiriiska. phrasal verbkuna waa jimladaha gaagaaban oo hadda modern world dunidan casriga ah looga hadlo. dadka luqadda u dhashay native language ku hadla waxa weeye waxay isticmaalaan phrasal verb. waxa ardayga bartaa buugani u sahlanaanaysa in uu si sahlan ama si fudud ku fahmo cid walba luqadda Ingiriiska ku hadasha. sababtoo ah waxay ku hadlayeen ayaa meesha ku jira oo dhameystiran oo aan kala har lahayn. waa sida hadda idin muuqato phrasal verbka, kuwa itemskana ayagana waa ay la socdaan. buugta waxa weeye ardayga markuu isdiiwaan geliyo ayaa loo soo diri doonaa. waa buug aad u tayo sareysa, qof walbana waxa weeye uu u baahan yahay maanta luqadda Ingiriiska danaynaya. buugga afraad buugga saddexaad waa buugga vocabulary-ska. waxaan ognahay caqabada inay naga haysto vocabulary-sku waa u muhiim luqadda Ingiriiska. waxaa la yiraahdaa qofka ku hadli kara luqadda waa inuu leeyahay ugu yaraan ama haystaa oo xifdisan yahay hayo korka hayo in ka badan 1500 eray. haddaba 1500 eray hal eray inaad u xifdisaa macna ku samayso. laakiin waxaa la rabaa ereyga markuu noun yahay, markuu adjective yahay, markuu adverb yahay iyo markuu verb yahay inaad kala garanayso oo mar walba ereygiyo isbedelay marxaladiisi oo ama noun ah ama adjective ah inaad u arag erey cusub. sidoo kale inaad magaca waxa weeye ereyga ama waxa weeye macnihiisa inaad ku qorto Soomaali ahaan macna sameyn mayso. waa in sidoo kale ay jimlad ugu jira ereyadu dadana jimlad aad ku xifdin kartaa. jimlad ayaa lagu fahmaa Ingiriiska siisaba, statement lagu fahmaa, erey looma fahmi karo. buuggan waa buugga saddexaad oo ardaygu waxa weeye markuu labada buug hore dhameysto oo u xigi doona. buugga afraad waa buug asaguna waxa weeye muhiimadiisa gaarka ah leh. buuggani waxa la yiraahdaa Writing Skills Success 20 Minutes a Day. waa buug ka dhisayo sida wax loo qoro, shuruucda wax qorista, habka wax qorista loo maro, haddii paragraph haddii composition tahay, iyo haddii xitaa aad journalist noqonayso, haddaad codsiyo qoranayso, wax walbaba shuruucda qoraalka ayaa lagu barayaa iyo shuruucda uu leeyahay, habka loo maro iyo inaad si fudud u qorto sheekooyin, maqaallo,
iyo xitaa waxa weeye book adigoo waxa weeye raacaya habka book uu ku farayo si wanaagsanna insha Allah ta'ala waxa weeye anaguna aan kugu garbixi doono. haddaba haddii aad dareynaysid waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada ku qoran. sidoo kale channelkeena YouTube-ka iyo Facebook page-keena waxaanu si joogto ah u soo dhigi doonaa casharo bilaash ah oo aynu ugu talagalnay dadka ayagu maaragtay aanan awoodin inay iska diiwaangeliyaan Bulshaka Academy. casharo goos ah oo kooban ayaan waxa weeye u soo gelin doonaa, adinkuna halkaas ayaad nagala socon doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada.